قاسي قابرتاه وبقول كل شيء ومعوبرينو بقولان سنو تغاي بحالكي كعوني جيراي كابوغا قنيدا بقولان سنو تغاي بحالكي كعوني جيراي كابوغا قنيدا يا لقيت بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joognaa magaalada Wisil maanta nimid anagoo ka wadna jaaliyada la wadaag raashin iskugu jira noocyo badan bariis bur sonkor saliid muxuu timir biyo in raashinkaas aan ugu talagalay inaan ugu deeqno ciidamada difaaca ee ku jira muxuu ahaa jaaliyadu halkan waxa idin kaga soo diraysaa hambaliyo in ku aadan ciidamada naftooda noo huray oo deegaankayaga iyo dadkayaga difaacaya halkan waxaan rabaa halkan waxa jooga muxuu ahaa sanad xildhibaan fiqi oo ah wasiirka amniga galmudug waxa kale joogna xubno badan oo halkan jooga uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ku shiiday dagaalkii ka dhacay deegaankan oo iyaga la'aantood mar hore la qabsan lahaa waxa jira deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan oo kooxahaas ku soo duuleen oo dadkoodii duleysteen oo siday doonaan ay ka yeelaan ciidamadaas intii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna waan garab taaganahay ilaahay ha guuleeyo iyagii madaxda kale uu ka mid yahay senator Abdi iyo xildhibaan fiqi iyaga la'aantood deegaanka mar hore laga tagi lahaa dadka kale dadweynaha kale oo deegaanka u dhashay iyo dadka dibadaha jooga iyagana waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan ciidamada wixii taakulayn ah iyaga la'aantood dadka aan ku hurudno daliya dibadba waa dadkan haddii la laayo ama la garab istaagi waayo muxuu ahaayay deegaanku ma sii jirayo markaas waad mahadsantihiin waxaan salaamayaa marka hore wasiirka amniga ee galmudug axmed macalin fiqi agaasimaha waxbarashada guddiga taakulaynta gobolka mudug oo gudoomiyaha u yahay Sheekh Cabdimanaan guddiga iskala qaybiyay haddana guddiga loo sii jikada oo bare iyo gudoomiyaha degmada Wisil oo ka mid yahay aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa ciidamada hortaagan cadawga ku soo duulay deegaankeena aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxa maanta na soo gaaray raashin ay nooc isugu jira oo ay noo soo dhiibeen tala wadaag sacad waxaan rabnaa inaan kala wareegno iyadoo matalaysa Sahra Daahir Mire waxaan rabnaa inaan meeshan ku soo dhaweyno guddigii oo wasiirkiina hogaaminayo amnigu mar haddii wasiirku amniga uu joogo asaga amniga mas'uul ka ah afkooda asaga ku hadlaya la wareegida asaga leh ka bacdina wuxuu ku wareejin doonaa guddiga muxuu ahaa degmada iyo guddiga taakulaynta gobolka mudug oo u qaybsanayaasha shaqadan ayaa lagu wareejin doonaa waxaan u mahad celinaynaa guddiga jaaliyada tala wadaag oo maanta soo gaarsiisay deeq raashin ah ugu tala gashay ciidanka difaaca ku jira deeqdaas waan kala wareegnay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan intii ka soo shaqaysay ama intii la baxdayna waxaan leenahay adduun iyo aakhiraba ilaahay ka jaaseeyo ayaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin anaguna waa meeshii lagu tala galay iyo dadkii ay u keeneen ay si toos u gaari doontaa marka warkanagu intaas ku kooban yahay waxaan aaminsanahay kaydadkan iyo waxaan socdo ee dadku nasiinayaan hadaanan loo yeelin baqaaro waaweyn inaysan deeqayn deegaanada galmudugna waa lagu xoreey karaa iska dhaaf gobolka mudug ee go'aankaas waa la qaatay tala wadaagna waa u mahad celinaynaa hadda gaarigan waa gaarigii hordhaca ahaa baabuurti kalena waa ku xigaan
horeyna waa u keeneen waana uga mahadcelinaynaa boqoradana dhex taagan oo safkeena qurxisay waxaa kaloo muhiim ah dadka raba inay xoolahooda baqaylaan dadkay xukumi lahaayeen dadkay berri ku manna sheega lahaayeen hob iyo dakhligaasa ka soo baxay iyo shidaalkaas iyo mashaariicdaas iyo dekeddaas maanta intii dukumentigan lagu hayo ayaa berri wax ka noqonaysa ninkii siyaasi oo isdhahaya dhimo oo ama dhimataaya dadka gadaal ka xukun wacdalaada xukumeen xukunku meeshuu yaalla waa ag marsan tahay waxaa lagaa rabaa siyaasiga inaad meeshaa timaadid wakiilka jaaliyadda ee tala wadaag walaasheen Zahra oo maaragtay maantay noogu timid magaalada Wisil ayadoo deeqdan faraha badan oo baabuurkan ka buuxda oo raashin iyo logistic leh noo keentay ciidanka safka hore ku jira oo dagaalka ku jira u keentay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantiin waa salaamantiin waxaa runtii sharaf weyn ah oo aan rabnaa inaan u mahadcelinno in walaalaheen jaaliyadda dibaddu ee tala wadaag inay ku soo markii afraad ay keeneen deeqdan lagu taakulaynayo raashinka ciidamadu ay cunaan oo ah zaadka iyo sahayda dadka dagaalamaya oo naftooda huraya marka dadkeenu waxa weeye labo ayay isku qaybiyeen qaybna inay dhiigga huraan qaybna inay xoolaha iyo jeebka dadkaas dhiigga huraya inay maaragtay helaan sahay ka shaqaynaya waliba isku xilqaamay jaaliyaddu waa badan tahay waa dad tiro badan wadamo kala duwan bay joogaan laakiin jaaliyadda si gaar ah tala wadaag ku midaysan runtii si gaar ahaan ayay noola joogaan ugula jiraan furinta maalin kasta subaxii quraac hadday noqotay qade iyo casho intaba way nala joogaan oo dagaalka safka hore uga jiraan marka waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo meeshii xoolahaasaa ka bixiseenna wax ka khayr badan allah ku soo bedelo waxaa weeye haddii inan adinka iyo dadka idinla midkaa lahayn runtii waxaa weeye in la sii wado dagaalkan ama uu sii socdo labada bilood way dhib badnaan lahayd marka waxaan leenahay tiir weyn baa tihiin tiirkaas aad ku tiirsan tihiinna lagama maarmo waxaan idinka sii codsanaynaa inaad sii joogtaysaan baahiyadu way sii badanayaan mar allaaliya markii hore loo dhaqaaqo mar allaaliya markii ciidamadu ay maaragtay sii bataan mar allaaliya markii dagaalku ka sii xoogoobo sidii hore taakulada iyo garab istaagga laydinkaga baahan yahay way badan tahay waxaan leenahay waa dareemaysiin waana tanaa markii ugu baahi badnayd baad keenteen aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa aad iyo aad baan runtii shuhadadii dagaalkii u dambeeyey raggii saraakiisha ahaana eheladoodii iyo maaragtay ciidankii ay ka baxeen iyo reer galmudugba tacsiib aan ugu dirayaa ilaahay ha u aqbalo shahaadadooda waa shuhaday ahaayeen cadow soo duulay hor taagnaayeen oo deegaankooda ku soo duulay wixii ugu fiicnaa na way baxsheen oo dhiigoodii iyo naftooda waxaan rajaynaynaa inteena kalena inaan dariiqoodii lagu wada socdo oo maaragtay wax la reebtaahi aysan jirin runtii maalinkii dhaweytana khasaaraha gaaray baa ka badnaa midka dhankeenaan soo gaaray waxaa weeye dhimashadoodu 45 iyo kontomeeyo dhaawaca ayay meeshii kala guddoomeen rag waaweyn baa ka dhintay ninkii taliyihii ciidanka watay wuu dhintay meeshuu ku maaragtay baktiyey insha allahu haddana way ka baxeen meelihii u dhawaayo dhan waana la daba socon doonaa haddii la yidhaahdo guushaasna waxaa weeye in la iskaashaday ku wada timid aad iyo aad baan Zahra mar kale iyo walaasheen ugu mahadcelinaynaa inay gabdhihii deegaankan ka soo jeedo dhan ee iyadu ka taagan tahay wiilashii ay wakiil u tahay gabdhihii deegaankan firfircoonaa waxaa la rabaa inay safka hore yimaadaan oo Zahra ay sideedoo kale ay maaragtay ay soo dhiiradaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waana mahadsantihiin jaaliyaduna mar kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin